السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مقاعيق وسلطان عبد الله محمود مامولها معهد علوم الدراسات كسياسة من Institute for Political Science and Knowledge. وحرمنا إن شاء الله إن دمان أمد الصومالي ملك استيجوبتو أن لو ذاقنو وربحنو لحريرة عذر كان كورونا فيروس كوفيد-19. معهد علوم الدراسات كسياسة وكاشانية هيئة عانكا لجنة أفريكا ريليف كوميتمنت عسبيتال كوين انترناشنال هوسبيتال وإسكا كاشادين دراسادو آد يا آد وناكسن إنينو دمان أمدين الصوماليات بلشدين الصوماليات أينو كبت بادين الله سبحانه وتعالى وحبت بادين كرا وحين ربنا إن شاء الله تسالوين يتلوين يوربحنو إنين أصوب بندقنو aanu diyaarinay oo aan iska kaashanay isbitaalka international hospital iyo hay'adaas waxaan rabaa insha Allah bal inaan wax yar ku soo koobno aragtideena qaabka loogu hortagi karo qaabka calaamadihiisa sida u haboon waxa weeye loola dhaqmi karo cudurkan Ilaahay subhanahu wa ta'ala dhamaan ummadda Soomaaliyeed ha ka badbaadiyo النبي عليه الصلاة والسلام وحاوينو شيغي دعو قاشان عذرها لستا أيكو دلاغا النبي عليه الصلاة والسلام كل يشان بقول وسنة كهر أيكو دعيس الدعاء ودعو آدي آد عجيب ودعو قفكي أخرستها والله سبحانه وتعالى وكبت بادن أيو عذرها وحو النبي عليه الصلاة والسلام وليه نحريسي النبي تقلي كركي سها أحادي اللهم إني أعوذ بك من البرص والجنون والجدام ومن سيء الأسقام النبي عليه الصلاة والسلام وحلي اللهم إني أعوذ بك الله وحن كامن انقلي عذرك برسك وانقنا وعذر qaabka iyo shakliga qofka bini aadanka beddelaya baraska wal junuuni iyo cudurka waalida oo maskaxda haleela wal judaami iyo cudurka juudaanka oo qofka bini aadanka shakligiisa iyo qaabkiisa beddelaya isna oo googo iyo farabadan qofka ku iimaanayo iyo min sayyi al-asqami iyo cudurrada iyo cudurrada kuwooda halista oo aan la aqoon nabiga calayhi salaatu wasalaam alla waa maartay kanisa waxaan rabaa insha Allah dhamaan ummadda Soomaaliyeed inaan maanta la wadaagno xoogaa yaro daraasaad oo aan diyaarinay oo hordhac ah inaan bal dhamaan ummadda Soomaaliyeed aan la wadaagno ka hortagga coronavirus COVID-19 hagahaga wacyigelinta ee ku saabsan fayraska coronavirus habka gudbinta cudurka corona qodobka koowaad gudbinta si toos ah dhibcaha ka duulaya bukaanka marka qufaca ama hindisada gudbinta aan ahayn sida tooska taabashada sagxadaha iyo alaabaha wasakhaysan kadib taabashada sanka afka ama indhaha intii aad meelaha saxaaqadaha iyo meelaha soo taataabato oo viruska gacmaha ku soo qaadato inaad hadhow gacmihii iyo indhihii iyo sankii alla aado la xiriiris toos ah dadka qaba cudurka coronavirus calaamadaha lagu gorto cudurka coronavirus waxa kamid ah qandho aad u daran daal fara badan oo qofku dareemayo qufac qalalan oo inta badan qofka ka yimaada xanuun iyo wadna garaac aad u fara badan sanka oo duufaysan cuna xanuun neefsasho aad iyo aad u adag waa calaamadaha ugu waaweyn oo lagu garan karo qofka cudurkan coronavirus-ka qaba sida looga hortagi karo cudurka coronavirus-ka gacmaha oo si joogto ah loogu dhaqo biyo saabuun ah daboolitaanka afka iyo sanka marka aad qufacayso ama aad indhisayso hilibka iyo ukunta oo si fiican loo kariyo ka fogow la xiriirka tooska ah qof kasta oo leh astaamaha cudurka neefsashada
sida qufaca ama hindhisada aan hore usoo sheegay. waxaan rabnaa insha allah inaynu talo yar ku beerino walaalaheen Soomaaliyeed iyo dhammaan ummadda Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan ee safarada dalalka dibadiisa iyo gudihiisa ugu gooshaya. waxaan kula talinaynaa macadka culumta iyo oo kaashanaya isbitaalka weyn ee International Hospital iyo hay'adda. waxaan kula talinaynaa kuwa u socda agaga uu ka socdo ama agaga uu ka soo ifbaxayo fayraska corona, iska ilaaliya in aad la xiriirto xayawaanka nool ama dhintay, alaabadaha xoolaha ama joogitaanka suuqyada xoolaha la isku dhaafsado. iska ilaali xiriirka dadka neefsashada adag. haddii astaamaha calaamadaha neefsashada ee afmareenka ay soo baxaan, waa in aad raacda hababkan soo socda. guriga joogoo iska ilaali in aad dadka kale isdhex gasho. baro ku dabool afkaaga iyo sanka marka aad qufacayso ama aad hindhisayso. iska ilaali safarka marka aad dareento xanuun, qandho, daal iyo neefsasho aad u daran. ilaali nadaafadda gacmaha iyadoo lagu amrayo biyo iyo saamuun ama jeermis dilaaya muddo ugu yaraan 20 seconds. sida saxda ee gacmaha loo dhaqo: marka hore cududa gacmaha ku dhaqdaa, kadib waa inaad isdhexgelisaa, kadib waa inaad faraha isdhexgelisaa, dabadeed waa inaad ruqcaha dhaqdaa, dabadeed waa inaad ku masaxdaa, dabadeedna waa inaad gacanta cagta kala gelisaa, kadibna waa inaad qalajisaa gacmaha. waa process aad iyo aad u weyn. goorta gacmaha la dhaqayo: cuntada ka hor iyo kadib, inta cuntada la samaynayo, ka hor ama kadib marka aad la joogtid qof bukaan ah, marka aad qufacayso ama hindhisayso kadib, marka aad caruurta ka bedelaysa xafaayadaha iyo wixii la mida, marka aad musqusha gasho ka soo baxaysid, marka aad taabatid xayawaanka, iyo marka aad taabatid gudaafadaha qashinka. inta badan talooyin muhiima ayaanu ku siinaynaa walaal, si aad cudurkan Allah subxaanahu wa tacaala uu kaaga badbaadiyo. marka aad dareento neefsasho adag, tusaale ahaan waxaad dareentay neefsasho dhib badan, waxaana joogtaa waddan ka mid ah kuwa lagu sheegay cudurka coronavirus 2 toddobaad ee hore. xirashada maaskaro caafimaad. hore u tag cisbitaalka kuugu dhow. aadaabta hindisaha si loo yareeyo caabuqa fuda: isticmaal clinic marka aad qufac iyo ama aad hindisooto, ama u isticmaal suxulka adiga oo gacanta soo laabaya. gacmaha ku dhaq saabuun iyo biyo diiran. su'aalo badan baa jira insha Allah oo imaanaya, oo aan rabnaa insha Allah part 2 inaan jawaabahoodii kaga jawaabno haddii uu Alla idmo. waxaan Allah subxaanahu wa tacaala ka baryayaa inuu dhammaan ummadda muslimka ah oo dhan ka badbaadiyo cudurkan dilaaga oo halista ah. waxaan idinkula dardaarmayaa taqwada Alle, inaynu salaada tukanno, inaynu cibaadada iyo Alla ka cabsiga aynu badino, in aynu fariimaha caafimaadka ay noo soo gudbinaya bahda caafimaadka aynu qaadano, inaynu iska ilaalino waxyaalaha nolol ka digay iyo waxyaalaha la mid ah ee waxa soo gudbinaya oo afkaartan la wadaagaya dhammaan ummadda Soomaaliyeed. macadka culumta daraasaadka waxaana isku soo dabariday hay'adda iyo isbitaalka guud ee International Hospital. aad ba u salaamantihiin. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.